magaalada London ee boqortooyada waddankan Britain waxa habeenkii xalay ahay ka bilowday bandhig dhaqameedka Soomaalida ee London oo 15 sano jirsaday ayaa waxa lagu qabtay British Library oo ku yaala bartamaha magaalada London. Somali Week ayaa ah bandhigii ugu weynaa oo noociisa kale lagu qabtaa meel ka baxsan geeska Afrika waxaana sanad kasta lagu soo casuumaa hal doorka ummadda oo ay ka mid yihiin fanaaniin abwaano hal abuuro iyadoo ay ka soo qayb galaan dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid dunida dacaladeeda. waxaana sanadkan lagu casuumay oo habeenkii furitaanka dadkii ka hadlay ka mid ahaa Ahmed Faarax oo ah directorka filimka Ayaanle oo markii ugu horeeyay shaanshadaha waddankan Britain laga daawan doono. Faadumo Faarax oo ah gabar samaysa faashiyonka kuna guuleysatay abaalmarin caalami ah. Ayaan Maxamuud oo ah qoraa Yusra Warsame iyo fanaanadii weyneed ee Aamina Faarax. Toddobaadka bandhiga dhaqanka Soomaalida ayaa waxa uu socon doonaa ilaa 29 habeenka gabagabada ayaa waxa lagu wadaa inay fanaaniin waaweyn ka soo qayb gali doonaan oo uu ka mid yahay Xariir Axmed. I would like to acknowledge all our visiting guests who came from North America, East Africa, Europe, all over. Now, it's no simple task to run a cultural festival. In fact, it's a mammoth undertaking. And I think as well as celebrating, and I'll celebrate a few more of the achievements of the artists that have been involved with Somali Week in a moment, but before I go there, I just want to take a moment to reflect on just how big a thing it is to manage to reach year 15 on a festival like this. It's nothing trivial when you consider all the artists that need to be looked after, the visas that many of them need, the venues that have to be confirmed, the tickets that must be put on sale, the budgets that need to be funded and managed, and you, the audiences, that need to be seated, entertained, and sometimes even challenged. lagu magacaabo toddobaadka Soomaaliyeed magaca hal-abuurka Soomaaliyeed magaca inta la wadaadisa magaca Soomaaliyeed waxa aniga farxad gaar oo gooniye ah in aan astaanta mahadnaqa guddoonsiiyo Maryam Mursal Ciise. runtii aad iyo aad baan u hambaleynayaa fanaaniinta inoo yimi abwaanada inoo yimi dadka magaca leh inoo yimi qorayaasha oo waliba isku dhex jira qaybina ay tahay qaybtii artska ahayd ee Yurub iyo UK waxaa ka qoray ama ka akhriyay hablo wariyaala hablo qoraa iyo inama qoraa iyo qaybtii ka timid Somaliland iyo Soomaaliya gudaha Soomaaliya ka timid iyo ummadda Soomaaliland ka wada timid qaar Hargeysa ka yimi qaar Muqdisho ka yimi qaar Jigjiga ka yimi qaar ka yimi dibadaha waan isku wada aragnay waliba saaxiib badan waan garanayo qaar Mareykanka ka yimi Saciid Saalax baa ku jira oo abwaan weyn ah aad iyo aad u jecelahay. waxaan ku faraxsanahay aad iyo aad inaan ka qayb galo Somali Week maantay waxaan la kulmay dad badan oo innovators ah dad Soomaaliyeed oo actors ah kuwa filmaan sameeyay iyo anigoo dhar sameeyay. shadaha UK dan waxa laga daawan doonaa filimka Ayaanle dareen intee leeg ay ku leedahay filim aad samaysay markii caalamka gaar ahaan boqortooyada Britain oo saameynsan uu yeesho oo Soomaalida ay wada suglayeen. wallahi wax walba igala qaalisan tahay in aan arko boqolaal Soomaaliya oo shaleemo fadhida ma garanaysaa oo screenka filimka daawanaya qoslaya qarkood ooynaya ma garanaysaa xamaasadda so inta waxba igelinaysaa encouragement siinaysaa oo ah inaan wax kala soo saaro oo hore u sii wado waxaana kaloo arkayaa in dadkayaga ay aad baahi ugu qabaan sheekooyinka ayaga u khaaska ah sheekooyin ay wada garanayaan marka laga bilaabo 23 ilaa 27 habeen kasta filimka la shidayo crowdku waan ku dhex jiraa xagga dabaan fadhiya marka waana doonayaa dadka inaan la hadlo oo weydiiyo fikradooda iyo siday u arkaan iyo intaay oo dhan marka laga yaabaa filmo kale Ayaanle la mid ah inaad soo saarto dhawaan. absolutely ha qorsheeda ku maqanahay dadkana aad uga heli doonaan hadii Ilaahay yiraahdo dhamaadka sanadkan Ilaahay kan ma aha kan soo socda laakiin waan ku hulanahay. waa maasanta Cabdilfataax wallahi lama qiyaasi karo habeenka ugu horeeyo barnaamijkan waxaadna moodaa sanad walba sanadka ka dambeeya inuu ka sii badanayo dadka xiiseynaya imaanaya waana ka qurux badan yahay dadka ka soo qayb galay haday noqoto oo adduunka daafaheeda ka kala yimid
marka barnaamij aan la qiyaasi karin baa caawa halkan ka dhacaya runtii waxa uu ahaa habeen aad iyo aad u wanaagsan oo wejiyo badan oo farxad leh ka muuqdeen waxyaalo fara badan oo maxaa la yiraahdaa soo kordhay Soomaalida dhexdeeda ku soo kordhayna lagu soo bandhigayay dad wada faraxsan oo runtii dhaqankooda iyo hidahooda iyo waxqabadkooda ku faraxsan bay ahayd munaasabad aad iyo aad u wanaagsan bay ahayd muhiimna ay ahayd in tan oo kale ay dhacdo mar walba waana ku faraxsan ku mahadsan cidii soo qaban qaabisay waana meel dadka ay ku kulmaan isku bartaan wax badan ay isku weydaarsadaan Assalaamu calaykum waan salaamay reer Honkebel aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb gasheen oo noo timaadeen caawa Somali Week oo 15 jirsaday xafladu runtii lama qiimeyn karaba because dadka isugu yimid waxa ahaayeen creamkii Soomaalida inta tira kale kaayeen actor international aha sida Isra inuu film qaadayaal inantii wheelchairka ku jirtay modelka ahayd hakala reebi Faadmo Faarax dhamaantood ka reebi runtii marka waxay level bay gaaladu yiraahdaan runtii eraygaas waxay isticmaalaan high level wuxuu ahaa night Soomaaliga waxaanu kaga jirnaa sponsorskan ka mid nahay urur saafan la yiraahdo ka masuulahay oo xafada baran degan habeenka 17 bishana mareen mursal ayaanu ugu qabanaynaa halka iyagaas oo Somali Week ka mid yahay Cabdi Fataax Ali Shirwac warbaahinta caalamiga Honkebel magaalada London